So, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kaleeto iyo halbeeg SOS Empire iyo taxanihii barashada suuqa sarifka lacagaha qalaad. Waxaan ku jirnay dhawaanahan oo noo socday barashada chart patterns-ka iyo noocyada ay u kala baxaan iyo sida ay u samaysmaan iyo marka suuqa aad ku aragtid sida aad uga faa'iidaysan lahayd. Cawana hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan idinla wadaagi doonaa qayb cusub oo ka mid ah taxanaha chart patterns-ka. qaybteena caawa hadduu Ilaahay yiraahdo waxay noqonaysaa nooca loo yaqaano triangle oo usii kala baxa ascending, descending iyo nooca kaleeto saddexaad ee loo yaqaano symmetric. Good. Okay, soo dhawaada saaxiibayaal. aan tagno shaashadeena wax walba inay nadiif yihiin ayaan rajeynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Okay. sida caadigeed marka taxanaheena aan ku baranaynay suuqan sarifka waxyaabaha aan kasoo sheekeynaynay ugu badnaa waxaa ka mid ah chart patterns-ka oo ah baahiyaha ugu badan ee waqti xaadirkan jira lana rabo qofka in uu fahmo si uu u noqdo ganacsado guuleysta suuqanna wax badan ka fahma. xaqiiqdii chart patterns-kan waa nooc ka mid ah noocyada ugu muhiimsan marka la joogo suuqan laga sameeyana lacag aad u fara badan. ka Soomaali ahaan bulshadana Soomaaliyeed ay fahmi karto luqadda aan ku hadlayo si ay afkooda Soomaaliga ah ay ugu helaan waxyaabo ku saabsan suuqan sarifka ayaan u sameynay videogan si aad uga bogataan hadduu Ilaahay yiraahdo. sidoo kale waxaan leenahay channel Telegram ah oo aan idinkula wadaagi doono hadduu Ilaahay yiraahdo shaashada qaybta hoose adigoo ku soo biiraya kana mid noqonaya ardayda guuleysatay ee heer ka gaaray suuqan hadduu Allaha awood leeyahay yiraahdo. Okay. waxaan rabnaa marka caawa in aan meeshan ku falanqeyno nooca loo yaqaano chart patterns-ka triangle sida uu ku yimaado sida uu u samaysmo iyo inta nooc oo u kala baxo. xaqiiqdiina waxaan maraynaa gabagabadeena chart patterns-ka intoodii ugu muhiimsaneed hadduu Ilaahay yiraahdo caawana aan isla fiirino marka triangle-kan iyo sida uu ku yimaado. Okay, qaabka shaxanka saddexagalka ah waxaa ku jira qiimaha uu dhaqaaqay uu dhaqaaqay suuqa meel adag oo xoog badan marka waqtigu dhaafo wuxuu ku siinayaa muuqaalka u dhaxeeya buyerska iyo sellerska. Okay, haddaa fahmayso intaas shaashada bogso ku qabso kadibna qoraalka iyo sawirada isla fiiri. qaabka saddexagalka guud ahaan waxaa loo kala saaraa marka hanaan sii wadis oo macnaheedu yahay kadib markii qaabku dhammaado waxaa loo qaatay in qiimaha uu ku sii socon doono jihada isbeddelka uu u socday ka hor inta uusan qaabkan u muuqanin. Good. habka saddexagalka guud ahaan waxaa loo arkaa inuu sameynayo marka ay ku jiraan ugu yaraan 5 taabasho oo taageero iyo iska caabin ah. taageerada iska caabinta waa meelaha supportiga iyo resistansiga loo yaqaano. Okay, tusaale ahaan marka 3 taabasho oo qadka taageerada ah iyo 2 xariijinta iska caabinta ama dhanka kale. intaas qoraalkeeni marka aan ku soo dhammeeno aan u nimaadno marka sawirka shaashada hortaada ka muuqda. sawirka markaad si fiican u fiirisid waa u jeedaa noocan triangle-ka labada jihaba wuu aadaa oo ma aha nooca continuation-ka ee meesha uu ka yimid markiisa hore u sii socon karaa. sida inta kaaga muuqata waa nooc korna aadi kara hoosna aadi kara laakiin la rabo qaab iyo farsamo gooni ah uu leeyahay in aad fahantid si aad uga faa'iidaysatid fursadan buy ama sell labada midi ay noqoto. Okay, badanaa sida hore aan usoo sheegnay marka shaxanadu way isku qaab eg yihiin ha ku qaldoomin oo noocan saddexagalkan sambuuska u samaysma ee benentigii hore aan kasoo sheekeynaynay iyo noocan dambe iyo isku kaadarsomin oo mar walba iyo waqti walba iyo shaxan walba ee suuqan yimaada waxa uu wataa qaab uu u samaysmo. qaababku way islahaan karaan inta hadda ugu dambeysay aan kasoo sheekeynaynay badanaa waxa ay hoos yimaadaan nooca loo yaqaano trend line-ka. tusaale marka shaxankan aad taagan tahay ee triangle uu yahay marka qaybta sare aad kasoo jeedid tusaale ahaan waxaa usoo degaysaa qaybta hoose sida adigoo sawiranaya trend line kadib markaasaas usoo sawiratid qaybtii suuqa ugu hooseysa ee aad imaanaysaa isla shubacyada marka aad joogtid meesha ugu hooseysa kasoo bilaaw oo la sawiro. sida caadiga ah marka la sawiranayo trend line-ka waxaan badanaa sharciyada aan ugu soo sheekeyna ka mid ahaa
in aad la raadisid xariijinta ama fiinta hoose ama fiinta sare labada midkood meeshii aad joogtid kor iyo hoosba kadibna uu ku taabto laba meel iyo wixii ka badan laakiin tan way ka duwan tahay oo qaabkan triangle-ka marka la suubinayo muhiimadda shumaca inuu kuu dhex maro oo kan ugu hooseeya inaad kasoo bilaawdid meesha jirka shumaca uu ku dhammaado kadibna adigoo kor u raacaya kadibna waxaan dhahan marka labada jihaba wuu aadi karaa oo ah midna kor iyo mid hoose good xaaladan markii ay taagneed suuqa marka kasoo qaad inaad wax information aad ka haysan wax dhici doona aan u nimaana marka sawirkeena labaad oo ah in la soo jabsaday qaybtii resistancy-ga noo ahayd ee kore good mar walba waxaan soo raacinaa oo la rabaa qofka in uu fahmo suuqan ka ganacsanayo haddii suuqan uu jabsado oo u siiyo fursad buy ah ilaa intee ayaan kor u raaci karaa waana meelaha entry-ga iyo out ama exitka loogu talagalay inuu qofka ku barto meelaha lagu galo iyo meelaha looga baxo okay qaybtan marka aad joogtid waxaa samaynaysaa labada af ee ugu sarreeya ee supportiga hoose iyo resistancyga sare soo cabiro adigoo la raadinaya inta dhaqaaq ee suuqan uu sameeyey kadib markaa intaasi dhaqaaqa ogaatid haddii uu jabsasho sare ama mid hoose uu ku siiyo kandhalka koowaad ee ka dhex baxa xirmadaasi resistancyga ama supportiga waxaad sugataa kandhalkiisa labaad adigoo markaasi ka faa'iidaysanaya fursadda cabirkii hore ee aad soo cabiratay ayaad kor u raaci kartaa ugu yaraan dhaqaaqa uu suubin karo waxa ugu fiican marka waxay tahay intii hore inta uu soo dhaqaaqay in la eg bibs faa'iido ah in aad ka qaadatid si hubanti leh oo la hubo in aad suuqaasi uga faa'iidaysatid kadib haddii lagugu soo celiyo waxa beeraatay kaa qusay ama kaa galay ama aad usii daba joogtidba ma jirto oo ileen faa'iidadaadii waad ka haysataa good nooca labaad ee asagana hadda aan ka sheekeynayno waxaan ugu tegaynaa qaybteena labaad waxaa jira marka sidoo kaleeto symmetric triangle oo ah saddex xagalka symmetric loo yaqaano saddex xagalka symmetric waa qaab shaxeed oo iskeelka sare ee sicirka iyo jirarka sicirka hoos u dhaca uu sicirku isku urursado meel ay u eg tahay saddex xagal ama qaab sambuuska okay isku aruursashada marka waxay noqonaysaa xariijintan sare iyo midda hoose ayuu badanaa uu ku dhex socdaa suuqa midna ma jabsanin oo inta ugu horeyso ee uu samaysanayo shaxanka loo yaqaano symmetrica markii uu samaysto marka xariijin hoose oo sida trend line u eg oo nooca support iyo mid sare oo ah resistance shabahdana qaabka trend line-ka marka aad subsatid waxaa dhici karta marka isla tii aan kasoo sheekeynay ee ka horeysay triangle-ka in uu ku siiyo fursad buy ah walow sidoo kaleeto uu samaysan karo fursad hoose oo sell ah okay waxaa dhacaya inta lagu guda jiro marka samaynta noocan waa in suuqa uu samaynayo meel hoose iyo hoos u dhac oo loo yaqaano lower highs and higher lows okay meeshan hoose haddaa fiirisid qoraalka englishka waa higher lows qaybtan hoosena waa lower high af soomaaligana loo yaqaano hoose iyo hoos u dhac oo meel hoose iyo meel kasii hooseyso okay taas macnaheedu waa in kuwa wax iibsada ama iibiyayaashuba aysan riixaynin qiimaha ilaa xad ku filan si ay u sameeyaan isbeddel muuqda oo ah macnaheeda marka ay buyerska soo riixaan kadibna waxaa qaata suuqa andhahe sellerska kadibna waxaa qaata buyerska muddo kadibna waa laga soo celiyey oo sellerska ayaa kusoo laabtay waa awood barbar ama awoodo isla siman kadib markii laga soo baxo xaaladan ayaan waxaan filanaa inuu suuqaasi kor aado ama hoos uu soo aado haddii tan ay ahayd marka dagaal u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyayaasha markaa taasi waxay noqon lahayd barbardhac ama natiijo siman tan sidoo kale waa nooc isugeyn ah oo loo yaqaano consolidation okay suuqa marka labada jihab waa uga soo sheekeen inuu aadi karo midda kale nooca loo sawirtana hortiina ayuu ka muuqdaa haddii aad fahmi weysin sida aan af soomaaliga aan ku hadlayo uu kugu adkaado kadib suubso xariijimahaaga kaaga muuqda horta shaashada horteeda ama sida uu u samaysmay shumacyada ama kandhalka suuqa okay taas waxay marka symmetric ascending jira markaasna ascending triangle oo ah saddex xagalka sare saddex xagalka sare waa nooc ka mid ah shaxanka shaxda saddex xagalka ah ee dhaca marka ay jirto heer iska caabin ah iyo wax yar oo hoos u dhaca
okay iska caabinta waa resistancy-ga in badan waa idinkugu celceliye in aad fahmi kartaan rajaynaa haddii aad maqashid kelimadda iska caabinta waa resistancy-ga kelimadda supportiga hoosana waa meesha suuqa laga taageero oo ah taageero okay waxa dhacaya inta lagu jiro waqtigan waa inay jiraan heer cayiman oo iibsadayaashu aysan u muuqan inay ka badan yihiin si kastaba ha noqotee waxay si tartiib ah u bilaabayaan inay riixaan qiimaha sida lagu cadeeyey hoos u dhaca sare good haddii marka ascending triangle aa aragtid ee uu ku samaysmo ee badanaa awoodihiina laisku dhiibayo oo marna buyerski ay qaadanayaan marna sellerski ay qaadanayaan natiijada aan filan karno waxa ay tahay in suuqaasi lagu kala adkaado si loo kala adkaado marka waxaan suganaa in suuqa labada jiha uu jiha aado oo ah ama jiha sare oo buy ah ama jiha hoose oo ah sell okay marka uu soo jabsado marka ee awoodihii lagu kala bato ee buyerska laga awood bato ee suuqa sellerska qabsadaan ama iska iibiyaasha kadib waxaan suganaa dib u celin oo ah pullback kadibna si aan fursad hoose ugu raacno suuqaasi okay shaxanadan triangle-ka loo yaqaano marka badanaa si aad u ogaatid suuqa meesha aad ka gelaysid iyo meesha aad uga baxaysid waxaa muhiim ah labada af ee labada xariijin ee tan sare iyo tan hoose inta u dhaxaysay ee dhaqaaq in aad soo calaamadaysatid kadib si aad u ogaatid inta dhaqaaq uu sameeyey adigoo kaga shidaal qaadanayo qaybtii hore kadib la imow jabsashadii hoose oo u raac fursad intii hore uu dhaqaaqay in la mid ah ugu yaraan good intaas markaad samaysid kadib waxaa haysataa meel aad suuqi ka geshid iyo meel aad uga baxdid oo weliba af soomaali fududna aan kugu sheegay aan rajaynayo in aad fahmi kartid noocaasi ascending marka aan intaas ugu gudubno nooca kale ugu dambeeya waa descending triangle oo ah saddex xagalka hoose ascendingka waa nooc sare ama af soomaali ahaan markii la fiiriyo sare ayuu noqonayaa nooca descendingkana waa nooc hoose okay sida aad u malaynaysid marka saddex xagalka hoose waa kuwa ka soo horjeeda saddex xagalka sare okay intaas markaan kuu sheegay dabcan waa fahmi kartaa haddii aad caqligaaga iyo maskaxdaada ka hashatid in cagsigii kii hore waxaa noqon karaa uu yahay descending haddaaba ascending soo fahantay descending inaad fahantay ayay u dhigantaa good aan kula wadaaga marka hoos u dhaca qaababka shaxda saddex xagalka ah waxaa jira xarig hooseeya kaas oo sameeya xariiqda kore xariiqda hoose waa heer taageero taas oo qiimaha aan u muuqan doonin inuu jebinayo good xariijinta hoose marka ee loo yaqaano supportiga oo hadda qaybtan hoosta ka muuqata suuqan kor ayuu ka yimid oo hoos ayuu noo soo aaday lagama yaabo marka haddiiba uu yahay descending triangle in uu noo soo jabsado good sax intaas waa isla fahnay waana kasoo sheekeennay noocyadii hore kor iyo hoosna way aadaanaan dhahnay laakiin marka descending iyo ascending la kala joogo waxa ay kala aadaan kor iyo hoos good haddii marka sawirkan aad fiirisid qaybtan hoose ee supportiga noo ah waa ay yar tahay fursad ah inuu soo jabsado oo fursad hoos oo usoo jabsado sawirkeena labaad si aan u fahno marka suuqii korka yimid ee ku dhex wareegaya xariijinteena dhexe ee descendingka triangle-ka ah kadib waxaa helnay fursad jabsasho kor ah mar walbana waxaan kasoo sheekeeyaa jabsashada sare uu suuqa kuu sameeya ama midda hoose badanaa ha ku degdegin suuqa oo waa la soo celin karaa wax walba ayaa dhici karo hubso in inta laga furayo kan dhalka xiga ee labaad si aan uga qaadano tradekeena ama booskeena cusub kan dhalka labaad kadib marka si aad u qaadatid tradekii waxaad u baahan tahay in aad ogaatid intee ayaan ka geli karaa intee ayaana suuqa uga bixi karaa good soo xariijisa marka calaamadahan meeshii ugu saraysay meeshii ugu hooseysay ee supportiga iyo resistancega inta dhaqaaq uu sameeyey adigoo ka shidaal qaadanayo kadib la imow qaybtan cabiro oo inta bib aa suuqaasi ka raadinaysid ha kuu caddaato intaas waxaan rajeynaa af soomaali fudud in ay tahay oo laisla fahmi karo sidoo kaleeto way badan yihiin noocyada chart buttonska insha allah waxaan kusoo gabagabayn doonaa 3 nooc ilaa 2 nooc oo kaleeto noo dhiman intaasoo keliyana kuma eka waa ay badan yihiin chart buttonska laakiin muhiimadda ayaa ah sida loo sawirto intooda badan sawirada iyo noocyada ay ku yimaadaan ayaa kala duwan laakiin waxyaabaha ay samaystaan badanaa iyo sida loo raacay iyo sida looga baxo waa isku wada mid
حرجينا أنت سينا فانتين هدي وعشر كان كعاوي فلن قيب توصي كومنتي جنو ورب وحلو وحي سؤال أفهم ويسدنا نلو ذاك هدي هذا كم بدهن أصحابتنا كوحنا الجنال كنا حلبك إن قيبت يوتيوب كنا كصوبير أديكو جنال كرقمنا يا أما سبسكرايب صارنا يا سيادو هيش العشرة الدنب أنسوق لين دونه سو كل واحد سمعني جنال تليجرام كاس أو أن كله ذاك نص فري إن أقنت عن أولين هاي سوقا بشوينت الصوماليات هدي أدحسين يزيد kusoo biir oo ka mid noqo si aad uga mid noqotid asxaabta suuqan ku guuleysatay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cashirkeenna hadduu allah wada la yiraahdo intaan cashir kaleeto aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaa sidaasi iyo nabadgelyo naxariis iyo nabadgelyo korkiina ha ahaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh